ma ogtahay in la furay suuqa casriga ah ee milkiila.com oo aad ku xayeysiisan karto wax kasta oo aad iibinayso shakhsi ahaan iyo shirkad ahaan intaba tusaale waxaad milkiila soo gashan kartaa guryaha iib iyo kiraba xafiisyada dhulalka gaadiidka alaabaha iyo wax kasta oo la iibinayo ama la kireynayo waliba qaab lacag la'aan ah booqo website-keena milkiila.com ama hadda kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka oo ku soo biir suuqan casriga ah milkiile waa isku xiraha bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka dalsan xaruntiisa magaalada muqdisho kusoo dhawaada warka habeenimo TV-ga dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeenimo aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya maamulka gobolka Banaadir ayaa raashin iyo xoolo nool waxa uu ku wareejiyay saraakiisha gacanta ku haysa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kulan daco iyo soo dhaweyn ayaa muqdisho loogu sameeyay mid ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed buugga oo qoray ambada musharax madaxweynaha galmudug Koofi Axmed ayaa xaalada lagu soo bandhigay magaalada muqdisho iyadoo xildhibaano iyo wasiiro ay ka qayb galeen bandhiga buuggaasi taasoo qodobadii wararka ugu waaweyn daawadayaal ku soo dhawaada warka oo dhameystiran shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. maamulka gobolka Banaadir ayaa raashin xoolo nool waxa uu ku wareejiyay saraakiisha gacanta ku haysa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ay weeliyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir xildhibaano iyo wasiiro ayaa maanta waxa ay booqdeen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho iyadoo uu ku wargelay xaaladda nololeed ee ka jirta xabsigaasi waliba badqabka maxaabiista ku xiran xabsiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho Yuusuf Jimcaale Madaale oo soo qaybka mas'uuliyiinta hogaaminayay mas'uuliyiinta ayagu tagtay xabsiga dhexe ayaa sheegay in ay ku talagaleen saraakiisha ciidanka ee gacanta ku haya xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gaar ahaan ciidanka asluubta inay ku wareejin doonaan ka maamul ahaan xoolo nool raashin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho iyo waliba mas'uuliyiinta ka socotay dowladda dhexe Soomaaliya ayagu ku bogaadiyay taliska ciidanka asluubta qaabka loo xanaaneeyo dadkii iyagu dambiyada kala duwan ugu xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho kulankaasi ka hadlay ayaa yiri maanta oo jimco ah waxay noo tahay runtii sharaf ay noo tahay inaan soo booqano xabsiga dhexe oo ay maalin dhaweed ay yimaadeen gudoomiye ku-xigeenkayga iyo xogeyaha guud iyo mas'uuliyiin kale oo la socotay oo naga wakiil ah oo aan soo dirnay inay bal xabsiga warbixin ay ka keenaan runtii saantaani waa qoran tahay waqtigeeday qoran tahay maanta ilaahay qadiray inaan nimaadno annaguna aan nimaado warbixintii ay noo keeneen annagoo ka duulayno oo ka jawaabayno ayaan maanta nimid inta hadda uu ka dhawaajinayay ku-samihii taliyaha ayaan maanta deeq ahaan aan u keennay raashinkaas iyo dharkaas oo aan isleenahay baahi weyn aan loo qabay iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka kale iyo maaragtay geelaasba in maalmahan lagu moodo laakiin xabsigu intaas kuma kaaftoomi karo intaas kaliya baahi weyn ayuu qabyaa dalku magaalada muqdisho runtii xabsigaani berigii hore inta uu yaraaday ayaa kaysanay xabsi kale laga sameeyey oo loogu talagalay inuu xabsi noqdo laakiin baahi timida darteed ayaa isbitaal iyadana iyo duruufa isbitaal looga dhigay marka baahidii shalay jirtay ilaa hadda way taagantaa weliba way kasii baahidu waa kasii kororta hadda sidii shalay marka waxaan leeyahay dalku xabsi u baahan yahay xabsigaasna insha Allah waa baadagoobkiisan ku jirnaa haddii dhulal isbees la helaayana inaan dhulka isbeeska looga faa'iideeyo oo xabsiga laga dhigo waa laga maarmaan runtii ciidanka asluub marka la leeyahay waa toosinta dadka marka la keenayo xabsiga qofka la keeno dhowr nooc isugu jiryaa meeshii anshaxa iyo asluubtiisa iyo lagu toosi lahaa oo tarbiyadiisii iyo dhaqan celintiisii iyo waa xabsiga aniga hadda waa ka dhawaajinayay ku-simooya 80 iyo waxaan malaynaa 60 eedan malaynaa ayaa mar lagu soo xoran ku jiray nin ka mid ah maxaabiista aan ugu nimid halkan oo joodarigiisa iga kacay wuxuu ii sheegay soo alkulistaan halkan lagu soo xiray
quraanka ayuu ku xifdiyay meeshaan 6 sano ku jiray quraanku ku xifdiyay salaada qolka hoolka weyn oo maxaabiista ay ku jiraan salaada saan ugu dushinayay marka taasna waxay ku tusaysaa meel dhaqan celin ah oo dadka lagu soo saaro inay tahay marka insha Allah laakiin waa inay u ekaataa meeshaas waa in loo ekaysiyaa hadda laakiin wixii ay faraha ka bataan isdul saaray noqonayaan maaragtay looma wada heli kara macallimiin ku filan laakiin waxaan leeyahay insha Allah hatta baahi macallin haday jirto inaan duur magaalada uga keenno oo halkaan ay wax ku baraan kulan ducaa iyo soo dhaweyn ah ayaa magaalada Muqdisho loogu sameeyay kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Abuukar Dayaxa aniga abtiyaashay waa kan oo ku faanaya maanta insha Allah waa munaasabad ballaaran oo ahayd hambalyo iyo duco isla markaana maanta Muqdisho loogu sameeyay Suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Ciroobe oo ah suldaanka guud ee beesha Saruur Madarkiciisa madasha munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran waxaa ka soo qayb galay odayaal aqoon-yahano culimo dhalinyaro haween iyo mas'uuliyiin hore oo ka tirsanaa maamulka Galmudug ugu horeyn munaasabada waxaa furay Dr. Farxaan waxaana uu sharaxay muhiimadda kulanka muhiimadda xalfadeena waxay tahay inaan u duceeyno Suldaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe hambaliyada iyo ducada waa ujeedadeena waxaan rabaa inaan hal mid kaga faa'iideysto oo ah isku duubnida iyo midnimada Jimcaale Cumar qof walba ay ku weyn tahay qof walba Jimcaale Cumar inta fadhisan in kale oo badan oo maqan oo jira waa ka cudur daareena inay soo gaari waayaan sidoo kale goobta ka hadlay odayaasha iyo marti sharafkii kale ee goobta lagu casuumay anigana maanta waxaan kamid ah abtiyaasha waxaan leeyahay wiilkayga soo dhawaaw waa hambali iyo duco waxa ahayna meesha kama furno waxa la yiri halliba harkeeda ma godlato hadda nin heer ayay soo taagan wax badan uma furro marka Jimcaale Cumar oo maanta soo dhawaada sida farxadda leh isku duubnida leh sultaan ku soo dhaweedeen waxaan leeyahay waxa matasheen dhammaan Saruur waqtiga gaaban xilliga salaada suldaanka waxaan leeyahay hambaliyo hadii ducada abtiyaal Allah ku aqbalo anigoo ku hadla afka dhalinyarada marna curadkii Umar Ibrahim waxaan ku leeyahay Ilaahay kula garab galo anoo afkiina ku hadlayo guud ahaan Ilaahay ha barakeeyo xil weyn waaye wax loo dhiibay xilkaas Ilaahay alla garab galo annagana waxa la rabaa muxuu ahay inaan la dhihin abar jacloy Muuse waa kaasi in la shaqeeyaa la rabaa dhalinyarada mutacalimiinta ha noqoto dhaqanka ha noqoto muxuu ahaayay gaar ahaan dhaqanku inay si aad ah ula shaqeeyaan ayaa la rabaa haddii aan lala shaqayn waxa waaye waxay shaqadii suldaanku dhib badan baa ka hor imaanaya wama nasru ilaa min cindillaah ilaahay ha kaa dhigo kii ku guulaystay xilkan baaxadda weyn ee lagu doortay qaas ahaan beesha Saruur Madarkiciisa ay ku doortay annana haddaan nahay jufada reer abtiga ee Jimcaale Cumar dhankeennan uga biiraynaa taageero hiil iyo hoob ayaan kula garab taaganna Suldaan waxaa tahay magacayaga ninkii goob geyn lahaa waxaan anigu aan ku leeyahay anoo ku hadlaya waxgaradka magaca Jimcaale Cumar ilaahay ha ka dhigo goob kasto aad tagtid kii ku guuleysta Suldaan muslim waaye Suldaan Cabdiraxmaan oo waxa laga rabaa oo lagu kala gaartaa diinta islaamka kitaabka ilaahay inaan ugu dhaqmo taas laga rabaa allahna kugu guuleeyo ilaahayna kula garab galo annaguna goor galab iyo suuxba waa ku ag taaganahay ilaahay ilmo rabaa inaan soo dhaweeyo Suldaan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ciroobe Suldaan soo dhawow ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow reer abtiga oo raba inay maanta ku arkaan suldaanna waa qabi jirnay waxaan ku rajaynayaa insha Allah tacaala inaad noqoto suldaan Saruur inta ka weynaato suldaan hawiye suldaan Soomaaliyeed inaad noqoto insha Allah tacaala waxaan leenahay suldaan Allah kula garab galo mas'uuliyadan culus ee lagu saaray bilaadanka waxaa la yidhi waa xayawaan dhaqan leh marka abwaanadii hore dhaqankaas waxay ku fasireen dhaqanka suuban waxaa la yidhi dadka iyo dugaaga kala saaraa
ama dadka iyo duurjoogta u kala saaraa sababtoo duurjoogta sida u kala awood badan yihiin ayay isku maquuniyaan laakiin bini aadanku sidiisaba dhaqan hagaagsan hadduusan lahayn xayawaanka waxba ma dhaamo waxaa la socotaan 26 iyo 27 xasaradihii taagnaa sida suldaanku u xalliyay waxaan leenahay maasantaa suldaane cabduqaadir gentleman oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka galmudug ayaa sheegay in beeshan ay heshay suldaankii ku habboonaa maadaama uu si dhow ula socdo xaaladda beesha umaleena jamaalo cumar 10 ama 15 ka badan oon aas ku arka maana weligay intaan oo kale jamaalo ma arkin marka quruxda wajiyadiina ee qulubtiina ka muuqatahay waxay marqaati ka tahay guusha saruur madarkicis uu gaaray oo aad adinku ka aheedeen xubin hormuuda laakiin guul in la gaaraa waxaa ka dhib badan in la ilaashado maanta meeshaan waxaa ku jira 4 ka mid ah 7 qofood ee ay ku abtirsato guusha Xaradheere oo ugu horeeyo generaalkeena oo asagoo 70 jir ah maalin walba u jiifan jiray barxadda yar oo taalada ahayd oo Xaradheere ugu dambeyn munaasabadda waxaa soo xiray suldaan sheekh cabdiraxmaan maxamed ciroobe waxaana uu ku dheeraaday in lala shaqeeyo isla markaana door weyn uu ka qaadan doono isku haynta bulshada waxaan u malaynaa jimcaale awoowe in loogu bixiyo raximahullah inuu maalin jimca dhasho soo saas ma weligiin ma maqasheen sabtiyaale iyo axadaale iyo isniinaale iyo khamiisaale ma maqasheen jimcaale maalinka jimcaha maalin sharaf badan oo qiimo badan oo ciid ah oo sayidul isbuuc ah waay sharaf weyn waxaa ii ah in ilaahay iga dhaliyo subxaanahu wa tacaala beeshaan qiimaha badan ee jimcaale cumar nabiga calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu sheegay sidii wasiirkeena sharafta uu sheegay ibnu binti alqawmi minhum gabadha reerka ka dhalatay wiilka ay dhasho ayagu ka tirsan yahay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marna nabiga calayhi salaatu wasalaam abtigiisu ku faanay hada khali falyurin ibnu imru'un khalahu warkaasaa abtigay ah buu aan ku faanayaay midkiin ha ituso abtigay aniga abtiyaashay waa kana ku faanayaa maanta insha Allah Abu Kardayax warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho buugga ambad oo qoray musharax galmudug ee madaxweynimo Koofi Axmed ayaa magaalada Muqdisho lagu soo mariyay oo ay ka qayb galeen bandhiga buuggaasina xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheena Juula Shaakir waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhiga buugga ambad ee uu qoray agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Galmudug Dr. Maxamed Aadan Jimcaale Koofi buuggan ayaa waxaa ku jira qisooyin cajiib ah wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka bahda qorayaasha fanaaniin aqoon-yahano dhaqaatiir dhalinyaro iyo dadweyne kale ayaa goobjoog ahaa madasha lagu soo bandhigayay buuggan bilan ee ambad qorayaashii iyo fanaaniintii ka hadlay madasha bandhiga buugga ayaa ku ammaanay qoraaga Dr. Koofi magac gaaban oo uu xulay buuggiisa ee ambad marka buug la eegayo hebelow lacagta qaado buug wanaagsan ii soo iibi hadduu qofku yiraahdo koo buugga waxa laga eegayaa waa magac fiican oo gaaban inuu leeyahay buugga ambad labada shuruudood uu leeyahay magac gaaban oo wanaagsan oo magac dhaqameeda ayuu buugu leeyahay waxa kale laga eegayaa buugga la soo iibinayo fariinta buugga uu xambaarsan yahay gudaheeda marka aad iyo aad buugga markaan eegay uu wanaagsan yahay
waa sheeko runtii dhaba wacyiga iyo waqtiga maanta aynu ku jirno ka turjumaysa. waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo Dr. Kofi sheekadanna waxaan rajaynaynaa waxaan umaleynaa inay sheeko dhaba tahay. ambad wax badan baad ka sheegteen horta Soomaalidu dhan baa ambada dhaqaniyan nafsiyan aqliyan waxa weeyaan asaliyan inagoo dhan baa ambada marka waxaan rajaynayaa inuu buug kala baa u yaala saaxiibkay oo ah sidii la soo noqon lahaa inuu noo sheego dabcan Kofi quraannimada waxa uu dheer abwaannimo horta ma ogtiin ya waxa jira eesa badan oo isugu sameeyay oo nu qaadnay. xildhibaanadii iyo wasiiradii khudbadaha ka jeediyay madasha bandhigga buugga ayaa dhankooda sheegay in qoristu ay tahay wadada kaliya ee jiilba jiilka ka dambeeya ay wax ku kala faa'iidi karaan kuna dhaxli karaan. waxaan u mahadceliyeen qoraaga buugga ee Dr. Maxamed Aadan Jimcaale Kofi. Dr. Kofi waa ku mahadsan yahay shaqada uu qabtay buugga ambad horta anaga dhan waa lunsanay laakiin qaabka u lunno waa garan lahayd marka waa noo fiican haddii noola sheegto sida u lunno waxaa suurtagal noqon inaan soo laabano haddaan ogaano sidaa u lunnay waxaa helaynaa inaan soo laabano marka lagu sheego waa lunsan tahay xaafadaada ma joogtid intaa kasoo luntay waa lagu tilmaamaa waa laabay xaafadaada tegay. buuggan uu qoray Dr. Kofi waxaa ii suura gashay nin saaxiibkaygu inuu iiga sheekeeyey ma akhrin aniga weli laakiin sheekadiisoo dhammaystiran yaa nin ku fiican sheekada oo la yidhaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur iiga sheekeeyey. sharafay ii tahay caawo inaan halkaan imaado horta buugga anigu ma akhrin waana rajeynaa insha allahu tacaala inaan akhriyo oo waaba ku qasbanahay sababtoo ah magaca ku jiro waa magac muhiim ii ah waaye waa magaca hooyaday waaye ambiya ku qoran ambiya waa hooyaday. waana mahadsantahay Dr. Kofi buugga aan noo soo bandhigtay in wax la qoro muhiim waaye anigana waxaan rabaa caaw inaan ballan qaado inaan buug soo qori doono ilbax la yiraahdo la qoro saamaynta ay leedahay koobaad waxa weeyaan waa bridge horta buuggu waa maxaa la yiraahdaa maxaa la dhihi jiray buundo waaye laba jiil risaaladooda ama fariintooda isku dhaafsanayaan ama isu gudbinaya. marka waxaan si gaara ugu faraxsanahay caaway inaan hor fadhino jiilkii yaryaraa oo wax badan markii ugu horreysay dhimaad buug la qoray inkastoo tibiyaashaan ka arkay inuu la qoray laakiin markii ugu horreysay runtii doctorka aad buu u mahadsan yahay runtii waan ugu mahadnaqaynaa dhowr buug uu soo bandhigay oo runtii dhaxal reeb ah dadka iyo bulshadana wax taraya ayaa uu qoray. ugu dambeyn qoraaga buugga ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Galmudug Maxamed Aadan Jimcaale Kofi ayaa ka sheekeeyay qisooyinka ku jira buuggan iyo waxa uu ka hadlayo. waxaan buugga in la akhriyo baan rabaa aniga ma rabo inaan sii dhex galo sababtoo ah xiisa male wixii haddii la idiin sheego. magaca ambad anaga sidaad osoon tihiin ereygan wuxuu ka turjumayaa waa qof bini aadan ah oo ambaday oo meesha u socdaan aan garanaynin ereyga sida ugu dhow oo lagu qiyaas qaadan karo qofku jidkuu mari lahaa waa ka lumi karaa laakiin qof meesha u socdo aan garanayn baa ereygaas lagu soo dhaweyn karaa. waa qiso leh dhacdooyin xaqiiq ah laakiin dadkii ay ku dhacday in la isticmaalo magacooda ma ogola sidaasaan waxaan uga dhignay sheeko faneed inaan magacyo kaleeta saarno oo deetana aan ka dhigno sheeko faneed xaqiiqooyin ku fadhisa laakiin dadkii magacyadooda aan la isticmaalaynin. soomaalidana mushkilada jirta waxay tahay maalin walba dhibaato un baan markhaati ka nahay haddana ma ogolin wixii in la sheego oo si aan inta naga dambaysa ay usii ogaadaan iyaguna halka hogahaas aysan ugu dhicin. buugga aniga waxa igu kallifay waxay ahayd qisooyinkan qisadan waxaan ka dhex helay waxyaabo yaryaroo aan bulshada dhexdeeda ka nowdgareeyay oon islahaa xal ay u baahan yihiin marka qaybo badan oo arrimahaas ayaa qisada ku dhex jira
oo ay ka mid yihiin saameynta colaaduhu ay qoyska ku yeeshaan. Qoys nabada hadduu doono qoys cusub ah ayaa colaadu saameynaysaa, waxayna ka soo saaraysaa burbur iyo kala tag iyo wax taariikh ah oo la xusi karo. Gaar ahaan saameynta ay ku leedahay carruurta iyo haweenka ayaa ugu xanuun badan. Juula Shaakir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. hay-adda Sodmo ayaa Muqdisho ku martigelisay kulan looga hadlayo bishiiba hal mar arrimaha ku saabsan xaaladaha bini'aadanimo ee dalka. kulankan oo soo qaban qaabiyey maamulka iyo weliba guddoonka hay-adda Sodmo ee iyagu ka qayb ka ahayd kulan loogu talagalay in bishiiba la iska wareysto xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay-adda Sodmo ee maareynta masiibooyinka qaranka ayaa isagu waxa uu sheegay in kulankan uu noqon doono kulan bilaa isla markaana looga areysan doono xaaladaha bini'aadanimo ee kusoo kordha gudaha dalka Soomaaliya. hay-adda Sodmo iyadoo ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa la aasaasay tan markii dhibaatooyinka bini'aadanimo abaaro iyo weliba sidoo kale biyo la'aanta ka jirtay gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya u magacawday guddi loogu talagalay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka taasoo iyadu wax ka qabatay xaaladihii bini'aadanimo ee ka jiray gudaha dalka Soomaaliya. guud ahaan warkii habeenimo aad ka daawanayseen TV-ga Dalsan, khayrtana daawanaysay caawa nageynta.